madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay xaalad dagaal oo ah 4 gobol ee Ukraine ee ruushka lagu soo daray waxaana goboladan laga dhaqan gelinayaa sharciyo cusub. madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ukraine ay diiday wax kasta oo loo soo bandhigo dhinaca wada xaajoodka, wuxuuna sheegay inuu sii wadayo duqeymaha Ukraine ay ruushku ka wadaan gaar ahaan magaalada caasimadda ee Ukraine. wuxuuna madaxweyne Putin carabka ku adkeeyay in la siinayo awoodo dhammaystiran taliyayaasha ciidamada ruushka si loo sugo ayuu yidhi amniga, isla markaana dib loogu habeeyo warshadaha iyo hay-adaha goboladaas si ay u taageeraan howlgalka militariga ruushka uu ka wado dalka Ukraine. sharciyada cusub ee madaxweyne Putin uu goboladaas ku soo rogay ayaa ka mid ah in la sameyn doono baaritaano dheeraad ah. Israa'iil ayaa markii ugu horeysay caddaysay mowqifkeeda ku aadan inay hub siinayso Ukraine iyo in kale kadib codsiyo badan oo uga yimid dhinaca madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky, iyadoo uu ruushku Israa'iil uga digay inay taageero siiso Ukraine. Ukraine ayaa marar badan ku cadaadisay Israa'iil inay siiso hub, iyadoo Ukraine mar kale ay usbuucan codsiyo u dirtay Israa'iil. wasiirka cadaaladda Israa'iil Gideon Saar ayaa sheegay maanta in Israa'iil aanay hubayn doonin Ukraine. isagoo arrintaas ka hadlaya waxa uu yidhi taageerada aan siinayno Ukraine kuma jiraan bixinta nidaamyada hubka iyo weliba hub caadi ah, mana jiro wax isbeddela oo ku yimid go'aankii aan horey u qaadanay in aanan dhexgelin dagaalka ruushka iyo Ukraine. dhinaca kale, Masar ayaa bilowday inay askar ka qorato Soomaaliya, taasoo qayb ka ah mashruuc ay maalgelisay dowladda Imaaraadka Carabta xilli uu sii xumaanayo loolanka dhanka awoodda ee kala dhexeeya Itoobiya dhanka geeska Afrika sida uu qorayo wargeyska Buzzweek. saraakiisha ciidamada iyo kuwa sirdoonka ee Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadadii la soo dhaafay yimid magaalada Muqdisho iyagoo ujeedkoodu ahaa inay qortaan kumanaan askar Soomaali ah kuwaasoo loo gudbin doono dalka Masar si ay tababar ciidan ugu soo qaataan halkaas. dufcaddii ugu horeysay oo gaaraysa ilaa 1200 oo askari ayaa wargeysku uu qoray in loo daabulay Masar usbuucii hore. saraakiisha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa doonaya inay Soomaaliya ka qortaan ilaa 8,000 oo askari toddobaadyo gudahood. sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ayaa kala dirtay askari Imaaraadka Carabtu tababareen oo u qaabilsanaa horumarinta danahooda shisheeye, waxaana xilligaas la amray in la xiro saldhiggii Imaaraadka Carabta ee Muqdisho. dad badan oo falanqeeya arrimahan ayaa sheegaya in tallaabada la qaaday ay sabab u tahay loolan adag oo u dhaxeeya dalalka khaliijka Carabta, iyadoo arrimahaasi aanay dani ugu jirin dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya ayay danteedu ku jirtaa inay ka fogaato wixii khilaaf ah, gaar ahaanna waxa ay isku hayaan dalal shisheeye oo danahooda uun ka fekeraya sida ay qabaan xeeldheerayaashu. Soomaaliya ayaan sidoo kale lahayn awood iyo kaabayaal ciidan oo howlo ciidan oo noocan oo kale ah ay ugu hurto dal kale, xilli ay Soomaaliya ay sugi leedahay amnigeeda gudaha. dhinaca kalena, xogo la helay ayaa xaqiijinaya in duuliyaashii hore ee militariga Ingiriiska ee howlgabka noqday uu dalka Shiinuhu lacag badan ku soo jiidanayo si uu khibradooda uga faa'iideysto militariga Shiinaha. ilaa 40 duuliyo oo horey uga tirsanaa militariga Ingiriiska ayaa waqtigan u tagay Shiinaha si ay tababar u siiyaan ciidamada dalkaas. Ingiriiska ayaa haatan soo saaray digniin ka soo baxday sirdoonka dalkaas oo duuliyaasha Ingiriiska looga digayo inay u shaqo tagaan militariga Shiinaha. saraakiil reer galbeed ayaa sheegay inay socdeen ayna sii badanayaan isku dayada Shiinuhu uu ku kaxaysanayo. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa sheegay in tababarada duuliyaasha la shaqaalaysiinayo aanay xadgudub ku ahayn sharciga Ingiriiska u yaala, laakiin Ingiriiska iyo dalal kale ay isku dayeen inay howlahaasi joojiyaan. waa shaqo lacag badan laga helayo ayna ku helayaan dadka la qaadanaya ee duuliyaasha, ayuu yiri sarkaal sare oo reer galbeed ah oo arrintan ka hadlayay. wuxuuna intaa ku daray in lacagtu ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi lagu soo jiidanayo.
mushaharka loo soo bandhigay duuliyaasha ingiriiska ee howlgabay ayaa lagu sheegay inay tahay lacag gaaraysa ilaa iyo $270,000. duuliyaasha ingiriiska ee shaqada ka fadhiistay ayaa loo qaadanayaa inay ka caawiyaan fahamka qaabka diyaaradaha iyo duuliyaasha reer galbeedka nidaamka ay u shaqeeyaan, xogtaas oo muhiim noqon karta haddii uu dagaal meel uun ka qarxo sida Taiwan oo kale. taasina waa midda Shiinuhu ay ka fekerayaan. afayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Liz Truss ayaa sheegay in xukuumadda Ingiriisku ay qaadayso tallaabooyin go'aan looga gaarayo arrintan, gaar ahaan sidii loo joojin lahaa duuliyaashaas Ingiriiska ee Shiinuhu qaadanayo loona ilaalin lahaa nabadgelyada Ingiriiska. taasoo afayeenku uu sheegay in haddii ay tiro bataan duuliyaasha Ingiriiska ee u shaqo tagaya Shiinaha uu khatar gelayo amniga Ingiriiska iyo weliba siyaasaddiisa dhinaca duulimaadyada.